maanta si diiran degmada Badhan ee gobolka Sanaag loogu soo dhaweeyay wafdii hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland Soomaaliya waxaana ku soo dhaweeyay shacabka degmada Badhan ee gobolka Sanaag todobada xaafadeed ee degmada Badhan shacabkooda ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay wafdii hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland sidoo kale waxa gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ku soo dhaweeyay wafdii hogaaminaya golaha deegaanka degmada Badhan maamulka heer gobol ee gobolka Sanaag ee degmada Badhan ugu horeysna halkaas waxaa ku soo dhaweeyay oo daahfur looga dhigay xafladda soo dhaweynta gudoomiyaha degmada Badhan Cawad Caali Xiiri gudoomiyaha gobolka Sanaag Siciid Badnax Jaamac iyo waliba xubno kale oo ka tirsan dawladda Puntland ayaa ku soo dhaweeyay maanta wafdii hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland لكن سومالي واحد تراها حسين هذا حسين هذا سنوبنا ما تيرو مثال ينوتو وين مكفرين ودم بالينودا غير خدا الله بنيو وامسور وين يا محمود عمل سودان وكيل سودان أداؤنا هاي بدن يشعب كذا ما تنسون وينو وفتيجا ودنيا برنامج وهجانيه والله كويس كذا وحاولنا نصل لواحد الدجاج كيمي ودسمي ومالين في عن وحاطة لك شعور تكسكة هالك نوصل لوينية والمدن تاجنا هالك العدالة وحاولنا كنت من يفتح صل لوانا وحين كانوا هذا الحمر يسيد كنت مياه يمر شيء ما يركو وحاولوا أنت ملالنا ووجهنا نوصل لويننا يدخل بتري يدوي كلنا يدخل دجاج كيمي وديانكين بكرية سؤال وانا هاي مرة بعد المرة تحت هذا قبل ما يمنع من كارنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland Soomaaliya ayaa sida diiran ee loogu soo dhaweeyay waftidiisa degmada Badhan ee gobolka Sanaag bulshada qaybaheeda kala duwan u mahad celiyay si magacaanta ugu soo dhaweeyeen degmada Badhan ee gobolka Sanaag tacaala mahad iskale marka labaad waxaan salaamayaa gudoomiyaha gobolka Sanaag degmada Badhan saraakiisha ciidanka kala duwan ee gobolka ugu horeeya taliyaha qaybta sagaalaad iyo taliyaha qaybta iyo taliyaha aaga dowlaha iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada dhammaan uqaasha waxgaradka dhalinyarada gabdhaha iyo guud ahaan bulshada caasimadda gobolka Sanaag ee Badhan wafdiga ballaaran ee ila socday xildhibaano wasiiro saraakiil ciidan agaasimayaal dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad waxaan rabaa inaan ka cudur daarano muddada dheer oo aad qorraxda taagnaydeen oo aad sugayseen marka labaad waxaan rabaa inaan si mug iyo miisaan laydinka mahad celiyo soo dhaweynta diiran ee niyad wanaagga ee aad maanta noogu samayseen caasimadda gobolka Sanaag ee Badhan runtii aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin maamul iyo shacabba waxay muujinaysaa in maanta Badhan ay jirtay fariintaas oo ah inay dowladnimo rabto inay horumar rabto inay dalkeeda la horumariyo iyo gobolka Sanaag la horumariyo iyo dowladnimo ay rabto aad iyo aad baa runtii ugu mahadsantihiin taasna annaga waxaan ahay waqti ka kooban golayaasha dowladda golaha wakiilada golaha xukuumadda agaasimayaal farsamayaqaano saraakiil ciidan ujeedka aan u soo baxnay oo u mareynay gobolladan Sanaag iyo Highland oo aan degmooyin badan soo marayna wuxuu ahaa وكلمة حالة
gobollada dardargelinta mashaariicda horumarinta ee gobollada ka socotay ee tashiga dadweynaha toosinta nidaamka maamulka iyo hay'adaha dowladda heer gobol heer degmo iyo kabidooda iyo sidii dhammaan bulshada iyo dowladdu isla kaashan lahaayeen horumarka iyo dowladnimada waxaan yeelan doonaa kulamo badan waxaan la fadhiisan doonaa qaybaha bulshada oo dhan waxaan qaadan doonaa waqti aan ku shaqayno oo ku tashano oo isku aragno dadku waxay taagan yihiin aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa soo dhaweynta waxaan rabaa inaan baraxda la sii taagnaan arrintaa ku soo koobo aad iyo aad baa mahadsantii dhammaan duwa gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland intuu xilka ku fadhiistay kursiga baarlamaanka ee dowladda Puntland waa markii ugu horeysay oo lagu soo dhaweeyo uu soo gaaro degmada Badhan ee gobolka Sanaag waa Axmed Cabdilaahi Ciise Axmed Cashuur degmada Badhan ee gobolka Sanaag